dagaal weleedan soo noqnoqday deegaanka buuxa ka tirsan deegaankan ka tirsan saaxiibada buuxa qaba marka dagaalkan wuxuu u dhaxeeyaa laba maaragtay ama hal beel oo waliba hal jifo oo isku jifo ah ee dagaalka u dhaxeeya dhibaatada maanta Soomaaliya ay ka tahay marka waxa la isku haystaa oo beerad ayaa la isku haystaa khasaaraha dagaaladaasi ay dhaliyeen ilaa hadda maxaa laga og yahay haday tahay dhimasho iyo dhaawacba والله dagaaladii ugu dambeeyay darab dhacay horta hal qof lagu dhintay marka adoo dhowr qof way dhaawacmeen qaarna deegaanka buuxa ka wada keenay qaarna baadiyaha meelaha la geeyay uu sheegay marka waa dagaal aan weli demin runtii hadda la fikirada leeyahay waa la diyaar garooba ka socdo inkastoo odayaal islaamay la ii sheegay saaki halay meesha tageen marka dagaalka sidaas u socda wax la isku haysto hadda waa dowladda wax laga tago hadda maanta Soomaalida u joogan waaye marka khasaaro badan iyo dhibaato badan ay meesha jirta adiga ogaanta miyaan ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed aanay deegaanka joogin si ay u kala dhex galaan milishooyinka dagaalamaya والله runtii deegaanka hadda dagaalada ay ka dhacayaan ciidamada koonfur galbeed joogan runtii deegaanka hoostaga maamulka koonfur galbeed way tahay laakiin waqti xaadirkan kula hadlay hadda ciidan joogan xildhibaan Cusmaan adigu waxaad ku matashaa baarlamaanka federaalka dadka degan ayagaas hadda dagaaladu ka dhacayaan adiga iyo dawladda ka tirsan tahay miyaanay dagaaladaas wax ka qaban karin oo aan istaajin karin والله halku dawladdan ku sheegay hadda sida waxaan la hadlaa aan idinka la hadlaa waxay tahay dadaalkii ka markay marka waan la hadlay runtii meesha waan la hadlay odayaalna waan kala hadlay hadda bulshada kala duwan sida ulama diinta iyo maaragtay dhalinyarada iyo ururada bulshada tamaamka ay ka wada dadashan oo sheegay wixii wara ama oda waa gaartay runtii laakiin meel hadda anaga waqtiga noo saamaha inaan tagana ma aha hadda koonfur galbeedna waqti xaarka ma joogto laakiin hadda laga farsamo kulay waa si bay noqon doontaa laakiin waqtigan waxaa ku dhex jira odayaal deegaanka ayaa ku dhex jira ilaa hadda saaka dagaal ma dhicin laakiin waa dagaal hadda weli halkiis aan leesoo gudbiyay intii aad idaacadaha baaqiya ka diri lahaydeen ama aad ka hadli lahaydeen dagaaladan Soomaa ahayn inta deegaanka tagtaan inaad waxa isku hayaan dadkan aad xal ka gaartaan waa sidaan ku sheegay runtii waqti xaadirkan deegaanka inaan tagno waxay ahayd maaragtay maxaa la yiraahdaa runtii suuragal ma noqonin laakiin markay kalifto danta ama odayaasha ay u maar waayaan ama ay kala joogi waayaan dantu waxay qasbaysaa meesha ay joogaan loogu tago xildhibaan Cusmaan sida aad sheegayso dadkani waxay isku haystaan dhul beereed laakiin hub bay adeegsanayaan gawaari dagaal bay isticmaalayaan kharash badan baa baxaya marka xagee hantidaas oo dhan laga keenayaa Soomaha cid ka baxsan inay dagaalka ku lug leedahay horta hadda gawaari iyo waxaas lagu sheegay meesha laakiin markuu aad ogtahay hubkaas keereeray Soomaalidu ay jirto sanadii dambe la wada qaatay runtii uu yaala nin walba gurigiisa ku haystaa marka hadda hubka lagu dagaalamo sida ugu maqaala waa hubka yaryar odayaasha yaryar runtii daraandoriga u dhaca marka kaasna hadda maanta Soomaaliya meel kasta yaala oo ma qarsoona kiiba la soo haystaa la isku dilaya oo dadku isku laynayaan marka ilaa hadda waxa caam oo la qaado la ururina ma jirto marka insha Allah taala hadda qof aan ku tuhmayna la beer ahaan ama reer ahaan oo sideenahay ciidaas tacamuleysa dagaalka labada janib la jirta baanday oo anaga ma jirto waxa ay dadkan laba beelood oo kala duwan ma aha waa dad isku beel ah waa dad isku reer ah waa jifo hoose wax dagaalama marka taasarteeda ma dhici karno iska lagu saarin karno ugu dambeyntii xildhibaan Cusmaan maxaad soo jeedin lahayd si dagaaladan soo laabtay loo joojiyo oo dadka deegaanku ay nabad ugu noolaadaan والله waxaan ku baaqayaa horta runtii dadka isdilaya waxa uu fiican ay joojiyaan inta sababtoo ah qofka dhinta runtii uu ka badan ka hadda maanta jooga marka waxaan dhihi lahaa ilaahayna ka baqa subhanahu wa ta'ala ulma diinta iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo ururada meesha jooga waxaan u sheegayaa ama aan ugu baaqayaa dagaalka in la joojiyo ay la joojiyaan faa'iido ma la dagaal mid ba ku dawladda ma dhasho waa dadka khasaaraha u geystay 25 sano la soo dhaafay dadkan waa dad u dhashay oo ehel ah qaraabo ah marka in isdilaa faa'iido ku jirto male kul nin intii inaba uu dagaya waxaan leeyahay dagaalka joojiyo hada ubaga inay joojiyaan dagaalka faa'iido ku jirto joojiyaan leeyahay